waad awoodi kartaa oo waad sameyn kartaa inaad Facebook lacag ka sameyso. marka labadan qodob ay ugu muhiimsan sida Facebook lacag looga sameeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ku soo dhawaada job skills. muuqaalkan waxaan rabaa inaan kula wadaago social media iyo siyaabaha lacagta looga sameeyo. sidaan ka warqabno dhalinyaro fara badan oo Soomaali ajaanib ah ayaa waxa ay kumanaan dollar iyo boqolaal dollar bishiiba ama maalintiiba ka sameeyaan social media. gaar ahaan labada platform ama labada software ee loo yaqaano Facebook iyo waliba YouTube-ka. marka Facebook iyo YouTube-ka waxay ku kala duwan yihiin shuruudaha qofka doonaya inuu ku soo biiro ama qofka doonaya inuu lacag ka sameeyo. marka waxaan isla eegi doonaa muuqaalkan aan isku eegi doonaa farqiga u dhaxeeya marka aad rabto inaad Facebook lacag ka sameyso iyo marka aad rabto inaad YouTube lacag ka sameyso. yaa fudud yaa lacag badan yaa la gaari karaa qoladee ayaa markaasi leh dadka ugu badan yaa wata Facebook iyo YouTube marka la barbar dhigo. marka waxyaabahaas dhan rabnaa inaan isla fiirino muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe dheh. sidoo kale haddii aad naga daawanayso Facebook fadlan share galay oo la wadaag asxaabtaada. marka muuqaalkan waxaan rabaa inaan hordhac uga dhigo qofka daneynaya inuu bilaabo ama social media lacag ka sameeyo in aan siiyo hordhac qofka rabo inuu bilaabo programkan inuu concept ka helo ama inuu wax un ka fahmo shuruudaha qofkaas looga baahan yahay. marka aan fiirino waxaan weydiiyey website-kan loo yaqaano bad.google.com waa website AI ah. AI waxa waa artificial intelligence ama website ay leedahay shirkadda Google. wax walbo aad weydiisana uu kaaga jawaaba. wuxuu la mid yahay ChatGPT oo kale waa. ChatGPT dadka yaqaano waxa uu ku saabsanaa ama waxa uu la xiriiray waa website aad weydiin karto su'aal walba oo aad u baahan tahay waa uu kaaga jawaabayaa. inkastoo waqti uu ku xiran yahay oo ChatGPT wuxuu ku xiran yahay 2021 wixii ka horeeyay wax walba oo ku saabsan cilmi ama su'aal ah internetka lagu keediyay oo uu kaaga jawaabaya. sidoo kale software-kana waa sidoo kale. marka waxa uu hadda noo soo qabanayaa 2021 wixii ka horeeyay. marka 2021 Facebook shuruudaha dadka markaas qofka raba inuu lacag ka sameeyo Facebook waxa laga rabay 10,000 oo followers ah. 10,000 oo qof inay kugu xirnaato ama raacayaal inay kugu xiran yihiin. sidoo kale shuruudaha waxay ahayd 600,000 oo minutes ah inaad markaasi la daawaday muuqaalada aad soo dhigtay inta u dhaxeyso 60 maalmood gudaheeda. waa 60 maalmood gudaheed ugu yaraan. sidoo kale shuruudaha waxa ka mid ah inaad haysato at least 5 active video ugu yaraan 5 video oo active ah oo macnaha comment laga dhiibtay oo like la saaro waxa la yiraahdaa la share gareeyay inaad haysato marka ugu yartahay 5 video. sidoo kale dhanka YouTube-ka marka aan fiirino shuruudaha waxa ka mid ah inaad haysato 1,000 subscribe markaad hesho oo sidoo kale aad hesho 4,000 oo watching hours ah. 4,000 oo saacadood marka lagu daawado 12 bilood inta lagu guda jiro isaguna waxaad buuxisay shuruudihii looga baahnaa YouTube-ka inaad lacag ka sameyso. marka la yiraahdo monetization-ka qaabka lacag loo sameeyo methodska ama qaabka lacag looga sameeyo markaan fiirino YouTube-ka Facebook markaan fiirino waxyaabaha lacagta laga sameeyo waxa kamid ah wax loo yaqaano in-stream ads. in-stream ads-ka waa muuqaalada aad soo dhigto inaad lacag ka sameyso. waxaa jiro stars oo iyaduna ah dadka inay stars xidigo ku gadaan oo aan arki doonaa subscription ay ku siiyaan oo lacag halkaasi aad ka hesho. iyo branding content oo isaguna ah muuqaalada iyo waxyaabaha aad soo dhigtay iyaduna in lacag lagu siiyo. YouTube-ka intaas in lamid ah ayuu leeyahay. isagana in-stream ads uu leeyahay, super chat ayuu leeyahay, wuxuu kale leeyahay super sticker, channel membership oo isaguna qofka membership ka noqonayo channelka waxyaabaha soo dhigto qofkii raba inuu daawado isagana lacag iska bixinayo YouTube-kaada oo lacag kugu siinayo. marka intaan oo dhan waa methodska ay ka sameeyeen ee lacag looga sameyn karo. laakiin midda ugu weyn ee dadka isticmaalaan waa midda muuqaalada la soo dhigayo Facebook ama YouTube-ka halkaas oo shirkadda Facebook ama YouTube-ka ay lacag kugu siinayso xayeysiimaha ay dul saaranayso muuqaalka aad soo dhigto. xayeysiimahaas meeqay ka siinaysa lacagtay ka siinayso waa kana waxa la yiraahdaa revenue share. dakhliga la wadaagayo waxa waaye 55% ayaad helaysaa muuqaal walba oo Facebook aad soo dhigto ama YouTube aad soo dhigto. shirkadda Facebook ama YouTube-ka marka ay lacag ay dul saarto xayeysiin 50% ayay ku siin doontaa lacagta ay ka qaaday shirkadaha ay wax u xayeysiinayso.
marka labadaba revenue-ga ama dakhliga ka soo gali karo labadaba way ka siman yihiin marka aad fiiriso laakiin mid kale waxaa jirto oo iyaduna qodob kale aad muhiim u ah oo laga rabo inaad ogaato facebooka dadka daawada iyo dadka youtube-ka daawada yaa badan waxaa badan dadka facebooka daawada sidaas darteed xayeysiimaha dadka marka sidoo kaleeto qodob kale waxaa jira muhiim ah oo ah marka aad Soomaaliya joogto xayeysiimaha facebooka way u furan yihiin oo muuqaalada Soomaaliya marka aad joogto daawanayso inta badan waxaa soo gal xayeysiimo ama dadka Soomaaliya jooga xayeysiimaha promotion ku sameeya wax xayeysiisto lacagta YouTube Facebook ay siiyaan ayaa muuqaalka adiga aad Facebook soo dhigta la dul saari doona halkaas ayaa lacag ka helaysa marka waxaa fudud ama macnaha waxa la yiraahdaa ay u fududahay dadka Soomaaliya jooga inay Facebook lacag ka sameeyaan marka dad ahaan yaa tira badan Facebook miyaa dad badan mise YouTube ayaa dad badan aan fiirino marka la fiiriyo Facebook audienceska ama dadka ku xiran Facebooka waxaa la yiri 2.91 billion active users ayaa per month isticmaala bil walba waxaa isticmaala 2.91 billion oo active users waxa waa dad mar walba isticmaala ama bishaas isticmaalay u furan yahay Facebooka sidoo kale haddii YouTube-ka aan fiirino waxa waaye 2.5 billion ayaa isagana active ka ah bil walba marka aan isu barbar dhigno waxay noqonaysaa in YouTube-ka uu ka dad yar yahay marka loo barbar dhigo Facebook marka growth marka la fiiriyo potential growth waxa waaye waa kobaca uu sameynayo kobacana labadaba isku si ay markaasi u kobcayaan easy use waxa waaye isticmaalkiisa marka loo fiiriyana waa iska dhexdhexaad oo labadaba way ka siman yihiin marka inta xariijinaya inaad isla faahno oo ah isbarbar dhiga laakiin hal qodob oo halkan ku jira ayaa aad muhiim u ah oo ah Facebook waxaan dhahnay 10,000 oo followers laakiin qodobkan waxa hore kugu soo sheegay in uusan update ahayn oo waxa update ah oo shuruudaha laga rabo ay tahay shuruudaha saxda ah ee Facebook markaad rabto inaad lacag ka sameyso waxay tahay waa inaad haysataa 5,000 oo followers ah sidoo kale waa in 60,000 oo daqiiqadood la daawaday muuqaalada aad soo dhigtay 60kii maalmood ee u dambeysay 60 saacadood maxaa 60,000 oo daqiiqadood maxaa loo jeedaa waa 1,000 saacadood oo kaliya 1,000 saacad oo kaliya marka aan u barbar dhigno YouTube-kan wuxuu ahaa 4,000 oo saacadood waa in la daawaday YouTube-kaada marka la isbarbar dhigo waxaa fudud marka Facebook ayaa fudud sidoo kale waa inaad haysataa 5 active videos oo ah 5 video oo muuqaalo aad soo dhigtay Facebook oo isaguna active in comment laga dhiibtay like la saaray la share gareey waxyaabaha salamidka ah marka harjinaya in Facebook uu ka fudud yahay marka aad u eegto inaad lacag ka sameyso YouTube-ka marka qodobkan marka aan fiirino waxa uu isku si u isticmaali kara ama aad isku si u isticmaali kartaa markaad isticmaalayso Facebook profile-kaada caadiga ah ama markaad isticmaalayso page haddii page aad isticmaalaysana 5,000 oo followers ayaa laga rabaa si aad Facebook lacag uga sameyso haddii aad isticmaalayso profile-kaada caadiga ama Facebook-kaada caadiga aad isticmaashana haddii aad 5,000 followers gaartay lacag waa ka sameyn kartaa laakiin shuruudda kale ku dhiman maxay tahay waa inaad haysataa 60,000 oo daqiiqadood in la daawaday 60kii maalmood ee ugu dambeeyay sidoo kaleeto 5 video active-na waa inaad haysataa marka guud ahaan muuqaalkan oo aan rabay inaan isbarbardhig ku sameeyno farqiga u dhexeeya marka aad rabto YouTube iyo Facebook inaad lacag ka sameyso yaa fudud marka waxaan isku raacnay in uu fudud yahay Facebook marka loo barbar dhigo YouTube-ka waad awoodi kartaa oo waad sameyn kartaa inaad Facebook lacag ka sameyso siyaabaha kale ee Facebook lacag looga sameeyo waxaa ka mid ah subscription-ka oo ah haddii aad gaarto 10,000 oo followers ah iyo 250 mar in Facebook dib loo soo booqday waxa isaguna ka sameyn kartaa ama furan kartaa button-ka loo yaqaano subscription button oo ah button qofka raba in muuqaaladaada uu fiirsado uu lacag bixinayo marka qaar waxaa aragtaa in Facebook aad fiirsanayso qofka page-kaas leh qaybta hoose uu lacag u saaran tahay ama subscribe ay ku qoran tahay subscribe-kaas marka dhahdo waxa laga rabaa $1 ama sentiyaal qofkaas page-kaas leh inaad lacagtaas siiso marka waxaan fahmi karnaa in qofkaasi qaybta subscription-kana uu lacag ka sameeyo marka labadan qodob ayaa ugu muhiimsan sida Facebook lacag looga sameeyo kuwa kalena way jiraan
waxaa jiro in live-ka lacag laga sameeyo siyaabo kala duwan iyadoo lacag looga sameeyo muuqaalada lamid ah ayaan facebookena soo dhignaa ama pagekeena youtube-ka haddii aad danaynayso fadlan nagu xirno like saar muuqaaladan soo dhigno oo la wadaag asxaabtaada guud ahaan muuqaalkii aan rabay inaan idinkula wadaago yaa fudud in Facebook iyo YouTube lacag laga sameeyo sida social media aad ugu soo biiri karto guud ahaan muuqaalka halkaas ayaan kusoo koobaya waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh